saaxiibayaal ku soo dhowaada muuqaalkeenna maanta. Bilowga filimka waxaan ogaanaynaa in dalkan uu muddo sannada uu ku jiray xaalad qalalaasa ah. Dagaalyahanada adduunka oo dhan ka kala yimina waxaa lagu dhiirigelinayaa inay qabtaan dembiilayaasha si ay u helaan abaalmarin lacageed. Mid ka mid a dagaalyahanadana waxaa la oran jiray Blaine Jane, wuxuuna doonaya inuu lacag badan helo. Sidoo kalena dagaalyahankan wuxuu caan ku ahaa inuu wax u dilo sida ruuxaantii oo kale. Maalin maalmaha ka midana Blaine Jane markuu joogay guriga qamaarka si joogta ayuu sharadka ugu guuleysanayay. Meeshaana waxaa mas'uul ka ahaa nin lagu magacaabo Fine, kaasoo ahaa nin dhagar badan sidoo kalena aan naxariis lahayn. Asaga iyo shaqaalihiisana waxay aqbali waayeen in ninkan indhala'aanta uu intaanoo lacaga uu ku guuleysto. Intaa kadibna markuu doonayo inuu halkaan isaga tago isla markiiba waxay bilaabeen inay soo dabagalaan. Laakiin ninkan indhoolaha ah ma ahayn nin caadiya, sababtoo ah wuxuu lahaa xirfad aan caadi ahayn. Inkastoo ay si wada jira u soo weerareen asagana, haddana dhammaantood wuxuu uga adkaaday wakhti yar gudihii. Markuu ka adkaaday kadibna Blaine Jane wuxuu Finaag weydiiyey halka ay ku sugan tahay Nayaan. Halkaana waxaan ka ogaanaynaa in filimkeenna uu ku saabsan yahay dagaalyahan indhoola ah kaasoo leh xirfad dagaal oo mucjiso ah. Markuu la kulmay Nayaan oo ahayd gabar maskiin ah oo nolosheeda la burburiyey, wuxuu wacad ku maray inuu difaaco ayada. Laakiin markuu arrintan faraha la soo galay, Jane wuxuu ku qasbanaa inuu qaado waddo dhiig leh si uu uga aaro gabadhan, sidoo kalena uu cadaalad ugu raadiyo. Haddana aan aragno sida ay sheekadu u dhacayso. Bil ka hor Blaine Jane wuxuu la kulmay gabar cunto karisa ah oo lagu magacaabo Nayaan. Haddana Jane waxaa soo jiitay urka cabitaanka macaanay samaynayso gabadhan, isla markiina wuxuu ayada ka codsaday inay ka iibiso xoogaa cabitaana. Laakiin way ka diiday arrinta, waxayna u sheegtay in cabitaankan ay ugu tala gashay martida ka soo qaybgalaysa arooskeeda. Sidoo kalena waxay asaga u sheegtay xoogaa cabitaana inay siin doonto hadduu hadhowdii sii joogo arooskeeda. Markuu doonaya inuu faraskiisa kaxaystana jawaan ayaa ka soo dhacay faraskiisa. Nayaanna aad bay u yaabtay markay ogaatay in ninkan uu qof raadinayo, kadib markuu ayada tusay sawirka nin dambiilaha uu raadinayay. Sidoo kalena Jane wuxuu ayada u sheegay in qofka madaxiisa ay dul saaran tahay abaalmarin lacageed si loo qabto asaga. Xilli dambe oo maalintaa ahna Wu Lon si kal iyo laaba ayay dadku u soo dhoweeyeen arooskiisa. Intii lagu guda jiray xafladana, Nayaan walaalkeed Nin Jun ayaa goobta yimi, isla markiina waxay asaga bartay Wu Lon. Laakiin walaalkeed isla waqtigaa wuxuu u hanjabay Wu Lon iyo martidii kale, asagoo Wu Lon ku leh hadduu qof ku dhiirado inuu u xoog sheegto walaashay, waan ku dili doonaa adiga. Natiijada buuqaana waxay sababtay in martida ay ka cudur daartaan xafladdan, kadibna ay goobta isaga tagaan. Haddana meesha waxaa ku soo haray ninkii indhoolaha oo keliya, sababtoo ah asaga uma ekayn inuu ka cabsanayo hadalka Nin Jun. Si kastaba ha ahaatee, Jane wuxuu aaday meeshii uu cabitaanka yaalay. Meesha ayuuna seexday habeenka. Habeen qarawa kadibna Jane wuu soo kacay, wuxuuna aaday Nayaan gurigeeda asagoo boorsadiisa wata. Isla markiina meesha wuxuu ku arkay dhowr aashuun oo cabitaan uu ku jiro oo dhulka yaala. Sidoo kalena mayd ayuu meesha ku arkay. Markuu si taxaddar leh guriga u soo galayna, wuxuu meesha ka helay Nayaan oo miiska dul saaran. Haddana Nayaan waxay asaga u sharaxday wixii ku dhacay markuu halkan ka tagay kadib. Intaa kadibna waxay u sheegtay horraanta habeenkii Yangi, Finaag iyo dad kale inay meeshan yimaadeen si ay u ugaarsadaan walaalkay. Haddana waxaa soo baxday Nin Jun inuu mas'uul ka ahaa howlgal muhiima kaasoo lagu soo saaraya alaabtii uu xaday Yangi. Laakiin Yangiga naxariista daran wuxuu dilay dhammaan shaqaalihii hawshan kala shaqaynaya asaga. Markuu shaqadiisa dhammaystay kadib, Nin Junna hadda wuxuu rabay inuu ka cararo asaga si uu nafsadiisa uga badbaadsado, laakiin halkaa ayuu ku dilay asaga. Halkaana waxaan ka ogaanaynaa Nin Jun iyo Wu Lon oo kaliya inaan meeshan lagu dilin, xitaana burcadu waxay jirdil xooggan u geysteen gabadha markay gurigeeda ugu galeen kadib. Maalintii xigtana Jane markuu waddada socday, Officer Gow iyo askartii kale waxay arkeen jawaanka asaga u saaran faraskiisa. Intaa kadibna waxay weydiiyeen waxa uu ku wado jawaankan. Jane-na wuxuu ayaga u sheegay in jawaankan uu ku jiro dilaaga macbadka ruuxaanta ee Delhi. Haddana waxay fahmeen ninkan inuu qabtay nin dambiile ah oo ay dowladdu raadinaysay. Isla markiina hadda wuxuu goobtan ku qabtay dambiile kale kaasoo ku dhex dhuumanaya askarta asagoo iska dhigaya askari. Jane-na hadda abaalmarintiisii ayaa la siiyey ka hor intuusan meeshaan isaga tegin. Intaa kadibna sargaalku wuxuu asiga weydiiyey inuu mas'uul ka yahay laynta qoyska Nayaan iyo in kale. Sidoo kalena Gow maalintii xigtay wuxuu aaday guriga Nayaan si uu meesha baaritaan ugu sameeyo. Intaa kadibna wuxuu ogaaday qoyska Yuan inay ka dambeeyaan dhibaatada meeshan ka dhacday. Laakiin qoyska reer Yuan maadaama ay ahaayeen qoyska ugu awoodda badan dalkan, umuusan dhicin inuu ka hortago ayaga. Taa beddelkeedana Gow gabadha wuxuu u sheegay inay ka tanaasusho arrintan.
inkastoo ay arrintaa ku qanacdayna waxay go'aansatay si kastaba ha ahaatee inay cadaalad hesho si loo dejiyo xaaladana Gow wuxuu go'aansaday inuu baabi'iyo caddaymaha wuxuuna sameeyey sheeko Niyaan inay ayadu dishay ninkeeda iyo walaalkeed markay gabadha suuqa geeyeenna Jane ayaa ka hor yimid ayaga caadiyanna ma uusan rabin inuu faraha la galo arrintan laakiin markuu arkay gabadhan masaakiinta in cadaalad darro ay ku habsatay uu iscelin waayay asaga wuxuuna soo dhex galay arrintan haddana wuxuu diiday in gabadhan meesha laga kaxeeyo wuuna soo badbaadiyey sidoo kalena wuxuu ayada u sheegay inay meeshaan isaga tagto laakiin markii hore waxay asaga weydiisay inuu dilo kuwii ayada soo weeraray balse Jane ayaa iska diiday fikraddeeda intaa kadibna waxay asaga weydiisatay inuu magaalada u raaco si ay cadaalad u raadsato ugu dambayntiina wuu aqbalay inuu raaco ayada intay sii socdeenna waxay asaga tustay turumbadeeda waxayna u sheegtay in turumbadan ay ku xasuusato qoyskeedii dhintay laakiin hadda way ka jabtay turumbadii niyad jab ayayna dareentay ayada intaa kadibna wuxuu ayada ka codsaday inay u dhiibto turumbada si uu ugu haayo ayada labadoodana maalmo kadib waxay yimaadeen magaalada isla markiina cunto ayaa loo keenay ayaga wax yar kadibna markay labadoodii go'aansadeen inay kala tagaan wuxuu ayada siiyey xoogaa tilmaamaha si uu u caawiyo ayada halka Nayaanna ay asaga mahadcelin ahaan u siisay dhala cabitaana intaa kadibna Jane wuxuu booqday Niyo taasoo ahayd saaxiibadii sidoo kalena waxay asaga ka caawinaysay shaqadiisa iyo inuu lacag helo Jane hadda wuxuu u shaqaynayaa si adag si uu u helo lacag uu ku daaweeyo ishiisa haddana horay wuxuu u aruursaday 9,000 oo dahaba dhowr maalmood kadibna Jane hadda wuxuu rabay inuu u dhaqaaqo qabashada hawshiisii ugu dambeysay isla markiina nin dhaawacan ayaa loo keenay Niyo haddana ninka wuxuu habaaray gabadhii dhaawacan soo gaarsiisay asaga sidoo kalena Niyo wuxuu u sheegay wixii ku dhacay maalinta Yangina wuxuu guursanaya gabadha General Gow halka walaalka Yangi ka weynna uu hadiyado u keenay qoyska Gow isla markiina gabar waalan ayaa xafladda timi waxayna qalalaaso ka bilowday meesha Yangina isla waqtiga wuxuu rabay in arrinteeda uu wax ka qabto laakiin Gow maadaama uusan doonayn in xafladooda ay qaribanto wuu celiyay asaga intaa kadibna Yangi Fan wuxuu ku amray in gabadhan uu meesha ka kaxeeyo halka markay mareysana gabadha gacanta ayay iga dhaawacday aniga dhageysiga arrintaana Jane wuxuu xaqiiqsaday in gabadhan ay tahay Niyaan haddana ay dhibaato ku jirto Jane hadda ma uusan awoodin inuu u baxo hawshiisii ugu dambeysay Niyoonna waxay isku dayday inta karaankeeda inay asaga ku qanciso inuusan ka hor imaanin Rayuan maadaama natiijada arrinta ka dhalanaysa aysan ahayn wax wanaagsan sababtoo ah qoyskan waxay ahaayeen kuwo awood badan laakiin gabi ahaanba wuxuu iska indhatiray hadalkeeda wuxuuna bilaabay inuu raadiyo Niyaan haddana bil kadib dhacdadii Niyaan Jane wuxuu la dagaalay raggii Fineeg kadib markuu jir dilay in muddaana Fineeg ugu dambayntii wuxuu asaga u sheegay meesha ay joogto Niyaan isla markiina wuxuu aaday meeshii ciwaankeeda la siiyey asaga meeshaasna waxay ahayd meel shiba sidoo kalena urta dhiig cusub ayaa meeshan ka soo urayay isla waqtigaana meesha waxaa asaga ku soo weeraray ninkii horay u dilay Nin Jun laakiin ninkan horay ma uusan ula kulmin dagaalyahan la mida Jane si xirfadaysan ayaana looga takhalusay asaga intaa kadibna Jane meesha wuxuu ka helay Niyaan oo qafis ku jirta sidoo kalena gacmaha ka xiran isla markiina meesha ayuu ka soo furay ayada maadaama Niyaan ay hadda u baahnayd daryeel caafimaadna wuxuu geeyay goobta caafimaad ee Niyo si loo daaweeyo ayada Jane hadda wuxuu ayada u sheegay in magaaladan ay isaga tagayso gabadhan laakiin marka hore daawe intaa kadibna Niyo way ka diiday arrinta waxayna asaga u sheegtay in Niyaan aysan u qalmin in la daaweeyo ayada haddana Jane wuxuu aad uga walwalayay Niyaan sababtoo ah nolosheeda waxay soo martay waqtiyo adag inkastoo ay aragtay waxyaabo badan oo cadaalad darraana Jane hadda wuxuu doonayay in ayada uu siiyo daryeel u qalma iyo nolol wanaagsan sidoo kalena wuxuu rabay inuu uga aargudo kuwii dhibaateeyay ayada ugu dambayntiina Niyo wuxuu ku qanciyay in magaaladan ay isaga tagayaan ka hor intaanan bixinna waxaan ka rabaa inaad daaweysi Niyaan wuxuuna kaloo ayada u sheegay inuu u aargudi doono qoyska Niyaan intaa dabadeedna Jane wuxuu ku soo laabtay goobtii uu joogay Fineeg wuxuuna weydiiyey sababta uu u dilay Nin Jun Fineegna wuxuu asaga ugu jawaabay Yangi Wan inuu doonayo in guurkiisa uu ku bixiyo dahab badan dahabkaana wuxuu ka helay qabriga Han hantidaa markuu helayna si uu u qariyo xogta wuxuu dilay qof walba oo wax ka ogaa arrinta Jane mar kale wuxuu asaga weydiiyey halka uu ku sugan yahay Gow Fineegna wuxuu asaga u sheegay Shion inuu asaga u diyaarinayo meel bandhig lagu qabanayo si uu uga qudbeeyo meesha haddana nasiib darro Jane ma uusan doonayn in ninkan uu sii noolaado sidaa darteedna si xun ayuu u ciqaabay asaga silig bir ah ayuuna qoorta ugu xiray asagoo albaabka kula xiraaya dhinaca kalena burcadii kale markay ogaadeen Fineeg inuu ku jiro xaalad xun waxay yimaadeen goobtan isla markiina markay albaabka fureen waxaa halkaa ku dhintay Fineeg asagoo arrintaa ka caraysanna Yangi wuxuu arrintan u arkay u dhawaaqista dagaal ka dhana qoyskiisa haddana askartiisa wuxuu faray inay u raadiyaan Jane iyo Niyo meel kale oo keynta dhexdeedana Niyaan markay soo kabsatay Niyo waxay go'aan
go'aansatay inay dib ugu laabato magaalada. haddana Niyaan waxay ayada weydiisay sababta uu Jane u caawinayo ayada. Niyona waxay ayada ugu jawaabtay sidaada oo kale asagu ma ahan qof daciif ah, sidoo kalena wax dana kaama laha adiga. nasiib darro markay magaalada ku laabatay waxa ayada qabtay Yang Yuan, sidoo kalena wuu garaacay ayada si uu uga ogaado macluumaad ku saabsan dagaalyahan Jane, laakiin kamaysan labalabayn arrinta. waxayna u sheegtay ninka indhoolaha dhab ahaantii inuu yahay Jane Yin, kaasoo ka yimi magaalo dagaalyahanada caan ku ah oo la yiraahdo Wolfie Battalion. asaguna waa geesi aan gamban markii la joogo goobta dagaalka. dhinaca kalena Jane wuxuu aaday meeshii uu joogay General Gao si uu ula kulmo asaga, laakiin intuu wadada ku socday waxa asaga la kulmay koox burcada intuusan Gao la kulmin ka hor. kulanka kadibna Jane wuxuu daaha ka qaaday xaqiiqo ku saabsan Yang Yuan, sidoo kalena Gao wuxuu u sheegay inuu doonayo inuu dilo wiilka uu sodoga u yahay asaga. General Gao-na maalintii xigtay wuxuu baajiyey arooska gabadhiisa si aysan khatar uga dhalan meesha markuu goobta yimaado Jane. dhinaca kalena Yang Yuan maadaama uu bahdilka u adkaysan waayey wuxuu garaacay walaalkiis Yang. si kastaba ha ahaatee Yang wuu iska dhiciyey asaga. intaa kadibna meesha wuxuu ku dilay walaalkiisii asaga ka weynaa, asagoo hadda isku sheegaya inuu yahay boqorka reer Yuan. xitaana halkan wuxuu ka cadeeyay cid walba oo cadowga qoyskiisa soo disha inuu siin doono abaalmarin lacageed. xilligaana meydka Neo waxaa lagu soo bandhigay magaalada ayadoo ay ku taalo 13 qaanso. intaa kadibna Jane markuu ogaaday dhibaatada loo geystay Neo wuxuu isku diyaariyey inuu wajaho Yang Yuan ka hor intuusan la dagaalin. Yangina wuxuu soo dhex maray tiradada. intaa dabadeedna Yang Yuan askartiisii wuxuu ku amray inay weeraraan asaga, isla markiina way weerareen asaga. isla waqtigaana Yang wuxuu fallaar ku toogtay Jane, laakiin fallaarta waxay haleeshay mid ka mid ah ciidankiisa. Jane-na hadda wuxuu u dhameeyey gabadha. ugu dambeyntiina si uu ugu aargudo saaxiibadiisii qaaliga ahayd ee Neo, Jane hadda kamuusan labalabayn inuu dilo Yang Yuan, halkaas ayuuna ku soo afjaray asaga. filimkeenana wuxuu ku soo dhammaanayaa dagaalyahankii indhoolaha ahaa oo guul weyn gaaray. haddii aad nala soo gaartay dhammaadka muuqaalkan, fadlan muuqaalkeena like saar, sidoo kalena channelkeena ku soo biiro subscribe dheh. waa ku mahadsan tahay la joogistaada.